السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب سوري وهذا كسوري وهذا 10 saddexaad oo kamid ah casharadeen HTML ka ah caawa waxaanu qaadanaa 10 saddexaad wuxuu ku saabsan yahay basics of HTML waxyaabaha basic ah ama asaasiga ah ee looga baahan yahay inaad ka ogaatid HTML ka inta aad si fiican u dhexgelin. marka caawa waxaan baran doonaa basics ka. marka basics ka waxa ugu horeeya waxa weeye HTML document muxuu yahay HTML document marka all documents must start with a document type declaration. HTML page kasta waxaa muhiim ah ama laga maarmaama inuu ka bilaabmo waxa loo yaqaano document type declaration. document type declaration ku waa intan calaamada ka weynta ka yarta ah calaamada kale calaamada exclamation mark ah doc iyo type oo capital letter iyo HTML iyo gradient oo ku xiran. intaas waxaa la dhahaa document type declaration oo haddaad eegtid xagan waxa ku qoran doc xagan waxa ku qoran type waa document type. documentigu nooca uu noqon doono deetana muxuu noqday noociisa muxuu noqday HTML macnaha inta kaliya weeye. document type waa nooca documentiga, HTML na waa inuu waxay cadeynaysaa inuu document type-kiisu yahay documentiga noociisu yahay HTML. marka page kasta oo HTML waa inta ka bilowdaa marka aad sameynaysid. The HTML document itself begins with HTML and ends with HTML. HTML intan waa maxay? waa documentiga noociisa. documentiga noociisa document type documentiga noociisu waa HTML. haddaba HTML documentigu halkee uu ka bilaabmaa? HTML inta HTML ka ah halkee uu ka bilaabmaa? marka wuxuu ka bilaabmaa HTML tagga furan wuxuuna ku dhamaadaa HTML tagga xiran. oo wax kasta oo aynu aragno ama wax kasta oo aynu dhex gelino markaan website-keena sameeyno HTML tagga furan iyo ka xiran dhexdooda ayaa la geliyaa. The visible part of HTML document is between qaybta inoo muuqata HTML documentiga macnaha qaybta aynu ka aragno browserka markaan kicino qaybta aynu arkano waxay ku dhex jirtaa body furan iyo bodiga xiran dhexdiisa. wax kasta bodiga xiran iyo bodiga furan dhexdiisa. tusaale waa kan intan oo kale wuxuu sheegayaa documentigan aan qorayo waraaqda macnaha page-kan aan furayo documentiga sublime text-gayga aan ku dhex qorayo nooca ay tahay macnaha waa HTML buu ku leeyahay. halkan waxaa ka bilaabmaa HTML documentiga ka bilaabma HTML ka bilaabma wuxuu ku dhamaadaa halka. physical part-ka ama qaybta aan visible part-ka ama qaybta aan ka arkayno browserka markaan kareyno waxa inoo soo baxay haday qoraal noqoto haday image noqoto haday design kale noqoto waxaas oo dhan waxaa laga arkaa waxaa la geliyaa bodiga xiran iyo bodiga furan dhexdooda. tusaale ahaan hadeerto xagan maxaa inagu qoran head 1 macnaha waa ciwaan koobaad. headska waan arki doonaa waa ciwaanka koobaad. head 1 waa ciwaanka macnaha waa ciwaanka ugu farta waaweyn ama ciwaanka ugu tiqsan waa kana my first heading macnaha intan hadeerto haddaan rangareeyo intan aan geeyo editor-kayga intaan qaado ama aan ku dhex qoro oo dabitan aan rangareeyo intana browserka inooga soo muuqanaysa intaas oo taagaga laga reebay laakiin qoraalka kaliya. markaas intaas ayuu ula jeedaa physical part of HTML document between body xiran iyo body furan dhexdooda. aynu ka socono waxaa jira waxa loo yaqaan HTML heading. HTML heading hadda halka markii marinay maxaa inoo qoraa H1 iyo H2 macnaha waxaan leeyahay star H1 xiran furan iyo H1 xiran baa inoo qoray macnaha H1 taas heading bay taagantay. marka heading ka bilaabno soo aragno HTML heading are defined with the H1 to H6 tags. HTML heading-ka ama ciwaanada HTML-ka markaad sameynaysid HTML-ka ciwaanada aad sameynaysid waxaa lagu qeexaa ama waxaad ku cabiri kartaa H1 oo ah ta ugu weyn iyo H ilaa H6 oo ah ta ugu yar. tusaale H1 this heading 1 H1 tabaad ku xidhay output-ka kasoo bixi doonaa kanoo kale ayuu noqonayaa kan soo maartid. hadda H1 waa ka waa farta ugu waaweyn baa H1 H2 qoraalkan dhex geliyana waa qoraalkan ka yareeya hore waa kan oo kale. H3 qoraalkan dhex geliya waa kan oo kale. H4 qoraalkan dhex geliya waa kan. H5 qoraalkan dhex geliya waa kan. H6
qoraalkan waa aragtaa marka si u kala waaweyn h1 baa ugu weyn h2 baa ugu xigay ilaa h6 marka saasa headingka loo sameeyaa ama headerka macnaha wax markaad ciwaan sameynayso kale waxaa jira wax la yiraahdo paragraph html paragraph waa maxay html paragraph marka html paragraph are defined with the b tag baa isaga lagu cabiraa ama lagu sheegaa b tag baad qoraysaa macnaha b tag furan dibitana paragraph ka dhex gelinaysaa hadana b tag ku qoraysaa intaas oo kaliya way waatan b tag put the paragraph in here marka halkan ku qor b tag ta xiran iyo taa furan dhexdooda paragraph kaaga dhig intaas ayaa isna ku cabiri kartaa slide-ka ugu dambeeya waxa weeye waa html images waxa la yiraahdaa jira html images waa taagag loogu talagalay in marka aad rabtid inaad image soo geliso html kaaga inaad isticmaashid html image defines img waa taaga ku sahlaya inaad soo gelisid image soo gelisid marka isagu waxa la dhahaa self close tag baa la dhahaa isaga lama xiro waa halka kaliya halka mid kaliya waa single page maaha marka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan attributes waxa kamid ah source waxa lagu cabiraa file path-ka ama meesha uu yaalo bush baa la dhex geliya meesha uu yaalo folderka uu yaalo image-kaaga la dhex gelinaysaa marka source waa meeshii laga soo qaaday waa ishii laga soo qaaday waxaa jira waxa la yiraahdaa alternative text oo alt loo soo gaabiyo isagana waxa weeye haddii sawirku soo bixi waayo oo kale inaad qoraal ku bedeshid qoraal baad raacinaysaa sawirka midna sawirka halkan aad baaskiisa gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa qoraal baad raacinaysaa marka haddii sawirku soo aan soo bixi waayo midna khad xun yahay qoraalkana soo baxay midna halkan sawir baan geliyay aan sheegaya midna Lancome oo kale loogadeeda ayaan soo geliyay marka loogadeeda soo bixi waday halkan oo kale ayaa waxaan ku qorayaa loogada Lancome marka sawirka meesha ka maqan inuu loogada Lancome yahay waa iska fahmaysaa hadhuuto weli basiskiisii ku jira casharkeena caawa intaas ayuu ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan channelka subscribe saara videogana like saara assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh